waxa weeyaan dadkuna dad wada dhashay oo isdhalay oo isku ayay ahaayeen laakiin shar baa soo kordhay arkuwa sharka wadowna waxba ka macaash maysaan joojiya mudaharaadyo jirin hal la joojo odayaashiisni baan nahay caaqiliintiini baan nahay salaadiintiini baan nahay dadka talada u egmateen baan nahay halka waxaan leenahay arintaas sidaan u soo jeedinay idinkuna aqbala waxaan leenahay wasiirka arrimaha gudaha soo qaad halkii ay lahaayeen ku soo celi iyagoo xor ah waanu kaa sugaynaa socodkaaga imika ayaa baanu kaa sugaynaa inaad shacbi weynaha aanu salaadiinta u nahay iyo dalka iyo dadkaba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta war saxaafadeedka yagani waa mid kooban weeye waa mid bilow ah waa mid haddii ala yidhaha istaba joogi doona kolba halkay waxay marayaan iyo siday waxyiin dadka aanu uga warrami doonno waxaan leenahay markaa qadiyadda ka socota saylac adalin baryar ibriyahan dambeba hadalkeeguna hadheeyey muddo 2 sanaa ragga halkan fadhiya intooda badan waa raggii qadiyadda dadka iyo dalka hoggaanka uga ahaa gacanta ugu hayey hore ugu hayey maanta taladeeda haya lagala xisaabtami doono mar kasta waxaan caddaynaynaa halkan taladii aanu haynay eed noo idmateen dalka iyo dadkaba inaad sidaad noogu idmateen gacanta aan ugu hayno annaan ka seexan annaan ka fadhiisan ayaan idin caddaynaynaa waxaan sheegaynaa mas-uuliyaddaasi sidii hore aan ugu haynay inaan maantan u hayno baan hoosta ka xariiqaysan haddii la idhahdo qodobka labaad arrinta dhallinyarada iyo waayeelka ka damqaday war saxaafadeedka iyo hadaladii badnaa ay ka dhacayay dalka waxa weeye waxaan u aragnaa damqasho maadaama hadalkii la soo celceliyey muddo badanna uu socday inay damqasho tahay waxay halkaa ku tegeen inay damqasho tahay waxay dhulka ku dhex mareen waad ku mahadsantihin baan leh qodobka kale dhallinyarada halkaa laga soo qaaday rag iyo gabdhaba leh ee hadda lanoogu sheegay hargeysa in la geeyey markii horena ballantoed halkana in lanoogu keeno waxaan leenahay wasiirka arrimaha gudaha soo qaad halkii ay lahaayeen ku soo celi iyagoo xora waanu kaa sugaynaa socodkaaga imika ayaa baanu kaa sugaynaa inaad keento qodobka ugu dambeeya nin xil qaadi eed qaad annagaa gacanta ku hayna annagaad nagala xisaabtamaysaan hala noogaga dambeeyo hala nooga joogo wixii taliya tusaalaha eed haysaanna xaq baad u leedihiin inaad noo keentaan mudaharaad iyo buuq iyo qaylo waxba ma soo kordhiyaan ma ogolin ha la joojiyo faraha lagala baxo waxa weeye taladaa halkeegaa laga daadahaynayaa tala midaysan oo dhaqankaa daadahaynaysa tala midaysan oo aqoon-yahankaa daadahaynaya tala midaysan oo dhallinyarada ayaa daadahaynaya tala midaysan oo cid kasta oo hawshoo xaq leh ayaa hawsha ayadaa daadahaynaysa waxaana lagala xisaabtami doonaa xukuumadda ayaa lagala xisaabtami doonaa kolba halkay maraysana laga wada hadli doonaa wixii kolba soo baxana farta ayaa inaga saari doonaa waana inii warrami doonaa intaasaan inuu sheegaynaa intaasaan inugu boorinaynaa intaasaan inugu amraynaa arrimaha ka soo
iftiimay magaalada saylac iyo xaalkeeda dhallinyarada tegtay iyo odayaashii tegeyba waxaan leenahay waxaa la yidhaahdaa dhallaan dhiilkiisuu ku ooyaa dhawaaqyada ka soo baxaya dhinaca galbeed bay dadkani ka dhiidhiyeen kana hadlayaan wax dagaala iyo wax duruuf oo kalena meesha kuma jiraan waxaan leenahay mudaharaadyuuna jirin aan tashanno miiska dushiisa aan ku tashanaynaa wixii ama buug ku saabsan ama balaayo kala wada miiskaan kaga tashanaynaa haddii la yidhaahdo dowladdana waan kala xisaabtamnaa insha allahu waxaan leenahay mudaharaadyuu jirin ha la joojo odayaashiisnii baan nahay caaqiliintiinnii baan nahay salaadiintiinnii baan nahay dadkaa talada u egmateen baan nahay halkaa waxaan leenahay arrintaas sidaan u soo jeedinay idinkuna aqbala waxaan leenahay wasiirka daakhiliga soo socdana dhallinyaradii halkaa ka hadashay ee la soo qaaday maanta halka aad imanayso boorama halkaad geysay ka soo kaxeeyo boorama keen madiicaanoodii dalka ku soo celi gobolka awdal ku soo celi boorama ku soo celi halkanaan kaga wada tashanaynaa haddii ilaahay yidhaahdo iyadoo nabad iyo caano iyo af soomaali wanaagsan oo miyir qaba lagu wada hadlayo halkanaan isugu nimaadno wixii jira aan isku sheegno ciddii balaayo wadda aan isla ogaano ciddii nabad waddan aan isla ogaano annagu nabad baan diyaar u nahay taliba tashasaan diyaar u nahay in la wada tashado in fadqalaalo kale la abuurana ma lihin shuqashuqayn kalena ma rabno ciddii haddii la fadqalaalo wadiyo ciddii faduul ku jirtaba waa la ogaan doonaaye halkanaan wada fadhiisanee wasiirka daakhiliga uu noo kaalay dadkii dhallinyarada rag iyo dumar baa halkan ku soo celi waxaan leenahay asalaamu calaykum hadalku waa saddexdaa qodob imika waa 10 bilaaban waan inigaha qabtiri doonaa marba halkaan isla gaadhno waxa weeyaan saddexdaa qodob ee la sheegay uun bay imika ku dhantahay arrinku waxaa la yidhaahday rayaal ninan kuu furi dooniyaanu kuu rarin baa la yidhi baalkan inakadeeday tiktokani waxa weeyaan calolxumo waan ka wada qaadnay wax badan rag waaweyn oo abtaad nootiin yidhaaha oo fidmahad iyo jeer ka hadla haddii odayadii dhallinyartu ay qoonsatay oo ay hadleen arooxaasi way naga joogsan doonaayo ninka shar wada ilaahay baa maaragta inagaga filane waxa weeyaan dadkuna dad wada dhashay oo isdhalay oo isku ayay ahaayeen laakiin shar baa soo kordhay arkuwaa sharka wadowna waxba ka macaashi maysaan joojiya qadiyadaana adeer waan ka midaysannahay odayadiinnii baan nahay sidaa loo sheegay imiga odayada dhallinyartu waa horgalunbaabay yidhaahaane war hana odhanina naymaansada odayadiinnii baan nahay waxbay nigama xumayno lacagaha la sheego ma aragno hadal xunna hanagu odhanina oo waxa weeyaan wax badan baa jira imika malaha de waxaa badan baa aada loo daawadaayo lacag lagu helaayo waxa weeyaan adeerayaal warkana waan inigaha qabtiri doonaa arrinku waa sidaa dhallinyartaa la qaaday waa sidaa loo sheegay wasiirka amnigow noo keen waxa weeyaan wixii dambe waan ka wada soconanaa wixii arrina waan ka wada soconanaa onkodkaa faraha badan lehna aakhirka waxa weeyaan waa la iskaga iman doonaayo meelunbuu ku dhammaan doonaaye waxa weeyaan sidaa ay nii damaqdeen waananu hadaluna way noo damaqday